waxaan u qalab aruursaday saaka inaan wakhti la soo qaato dad aan in badan niyadda ku hayay inaan la kulmo oo aan kala sheekaysto xaaladda ay kaga nool yihiin halka ay ku jiraan. waxaan ku sii socdaa xabsiga dhexe ee xamar oo aan jeclahay inaan booqdo isla markaana aan wax badan ka ogaado maxaabiista ku jirta xabsigaasi. albaabka markaad ka gasho waxaad u tagaysaa dad aan xorriyadooda haysan ee lagu soo kala eedeeyay dambiyo kala duwan. qoysaskooda ayaa soo booqda maxaabiistan isbuucii 2 jeer. kuwa carruurta lehna awlaaddooda ayaa loo keenaa si ay isku arkaan. halkan waa barxadda weyn oo ay ku sheekaystaan kuna ciyaaraan kuna cunteeyaan maxaabiista, kamana foga qolalka ay ku nool yihiin ee deegaankooda uu yahay. waxaan gudaha u galay dhowr qol oo aan soo indheeyay. dabcan waxaa aad u badan tirada qol wada seexata iyo weliba nifaaska qolka oo aan isku dheelitirnayn, laakiin waxaa loo dhigay marwaaxado iyo telefishin ay kala socdaan akhbaaraadka gudaha iyo caalamka. waa mid ka mid ah qolalka maxaabiistu ay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. ilaa 40 sariir ayaa ku jirta oo isisaar ah oo loogu talagalay in maxaabiistu halkan ay seexdaan. waxay haystaan adeegyada caadiga ah sida qaboojiyaal, telefishin ay wararka kala socdaan, laakiin maxaabiista halkan waxa ka maqan oo kaliya xorriyadooda. waana kuwa sugaya inay dhammaystaan amba ay helaan cafis xilligii xabsigooda uu ku ekaa. alxamdulilah ilaahay mahadiisa waa meeshaan ku noolnahay, sariiraheena iyo xaaladeena iyo macluumaadkeena. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa in intaan ka badan aan heli doono insha Allah. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dadkii hawshan ka soo shaqeeyay ilaa heerkan soo gaarsiiyay. kulli xabsiga dhex waa la yaqaanaa ama gaal shara wax loo aqooni jiray wixii ahaan jirtay iyo wixii maanta tahay inay kalsooni imaaday oo maanta yacni in la soo dhaxgalo saraakiishii iyo maxaa la dhahaa maxaabiistii si kalsooni leh in la soo weedaarsado maxaa la dhahaa howlihii iyo xabsigii iyo xaaladiisa ayadoo meesha ka baxday kalsooni daradii iyo hebel qofkan waa maxbuus ama aan loola macaamilin qaab si kale ah ama qaab kalsooni dara. alxamdulilah anagna taas waxayna siisay inaan maxaa la dhahaa ayagana hoostaan ka galno, isfahanno, isku kalsoonaano, aan ka wada shaqeyno dhammaan wax kasta oo markaa jeclaan karaan waajibaadka ayaga saaran. marka insha Allah waxaan codsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo kulley dadka mas'uuliyiinta ah ugu horeeya madaxweynaha inta ka hooseysa dhammaantooda in arrinkan dib loo fiiriyo maxaabiistii. alxamdulilah noloshooda maanta haddii maanta jireed nolol xumo waan sheegi lahayn waxaan qaranayn ma jirto, laakiin nolosheena way fiican tahay, xaalkeena maanta jiifkeena intaba waa arkaysaan. laakiin waxaa naga maqan waxa qof kasta maanta ku taami karo oo ama waalid ah ama wiil ah. waxaan leenahay hooyooyin, xaasas, waalidiin, walaalo, dhammaan ehelo. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in laga farxiyo waalidiinteena kurbada hayso, murugta hayso, wiilashoodii iyo maqan oo ku dhex maqan Soomaaliya dhexdeeda. marka waxaan codsanaynaa insha Allah barnaamijkaas si gaar in loo fiiriyo, guddi gaar in loo diro. taliyaha xabsiga dhexe sareeye guuto Maxamed Sheekh Cumar Xirsiile ayaa iiga waramaya taariikhda xabsiga dhexe iyo weliba maxaabiista ku xiran tiradooda. xabsigan wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo tiro badan. waxaa jiri jirtay in askariga iyo maxbuuska aysan is-salaamin, isu imaanin, is-aqoonin. xagga isdhexgalkana indhihiina ku soo aragteen in maanta qolkii maadharradu ay ku jireen bartankiisa intaan idin geeyey
ayadoo laga cabsanayo aad ku soo waranteen nolosha aad aragtay oo ka jirta xabsiga 2 sano ka hor ma jirin 2 sano inta ah taliyaheenna ilaahay raalliha ka ahaado asaga ayaa sabab u ahaa qaabka waxbarasho ood aragteen qaabka jiifka ood aragteen dhalooyinka ku jira ciyaaraha fikraddiisii oon annaguna garab siinay unbay ahayd marka xabsigaani wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan tirada ku xiran waa tiro 1,000 kor u dhaafaysa lama sugo tiro sugan lama dhiibo waa 1,000 qofooday kor uga badan yihiin dhakhtarkii waad arkaysaa haddeer ka soo baxay qurbaawi ah asaguna oo daaweynayey maantadaas fadhiyuu ku jiray sectionada 5 section waaye 5taba wuu maray dhakhtar kalaa ku sii jira hadda oo gudaha ku jira daawadooda waa haystaan ilaahay mahadiis waaye qofkii jiran iyo ayagaba muddo yar ka hor xabsiyadeenu ma lahayn jiif ma lahayn dhulkay dadku seexanaya waxaa ka jira ciriiri badan waxaa ka jira biyo yari ka hadlimaynaba markaas muxuu ahaa wixii intaas waxaa ka jiray raashin xumo ka hadlimayna marka wixii horumar waxbarasho iyo farsamo iyo hadiiba waxyaabihii beeska ahaa jiifkii iyo biyihii iyo muxuu ahaa adeegyadii caafimaad wixii yani asaasiga ahaaba disan jirin wixii horumar ah inaan laga hadli karin waa dareemi kartaan marka annagoo la kaashanayna shacabkeenna waxaan ku guuleysanay inaanu qayb dhan oo xabsiga la oran jiray Biomondo ama xabsiga lagu hayay garsooyaasha oo totally dhulka galay 200 kun in lagu dhiso oo muxsiniin Soomaaliya haddaan carabka ku dhaftana mu'asasada Sheekh Macali Nuur inay fangarayso oo maalgeliso maanta tana 500 in ku dhow oo maxaabiis ah ay ku jiraan oo zaxmadii ama ciriirigii aan sina yani loo fasiri karin ee ka jiray xabsiga dhexe lagu fududeeyay oo lagu kala qaaday intaas kuma aanan sii ekeen misna waxaan inay okay qofkii raashinkoodii baa la hagaajiyay 3 waqti ayay wax cunaan oo cunno fiican ay cunaan alxamdulillah yani ma dhahayno yani waa extravaganza laakiin cunno qof aadanaha ku noolaan karo quraac iyo qada iyo casha waxaa loo Soomaalidu waa hilba jeceshay maalin kasta oo jimca geel baa loo qalaa maalin kasta oo jimca geel baa loo qalaa marka halkaas marka raashinkooda waad arkaysaa haddaad arki yani masuuradooda hore qaarkood ama iyaga la sheekaysato siday hadda yihiin iyo siday ahaayeen aad bay u kala duwantay adeega caafimaadkaan bilownay dhakhaatiir baan qornay oo maaragtay dhakhaatiir waayo araga ayaanu qornay oo ciidanka asluubta noqday oo ka shaqeeya caafimaadkooda iyadoo dhinaca kalena isbitaalka Kaysanay ururka bisha cas Soomaaliyeed oo maamulo ayaan gacan weyn naga siiyaan xagga caafimaadka waxaa sidoo kale uu ahaa shakhsigii bilaabay in maxaabiistu ay helaan adeegyada ay haystaan maxaabiista ku xiran xabsiyada wadamada horumaray qolalka ay jiiftaan qol kasta waxaan u galeynaa marwaxado maadaama magaalada caasimaddu marar badan kulushahay marwaxado qabow baa loo geliyay telefishinna loo geliyay ay caalamka iyo akhbaarta iyo waxa jira kala socdaan wax fiicnaan lahayd inaad timaadaan markii World Cup ku socday ama kubadda cagta adduunka oo leedahay meesha maxaa ka socda yani waxa sawaxan iyo taageere iyo keeriso yani sida wiilasha la facaaho ku nool iyo gabdhaha oo magaalada jooga kale inay yani maartay xorriyadii hawaayo qofku laakiin aadanimadii inuusan waayin naxariistii inuusan waayin waxaan gudaha u galay qaybta ay ku xiran yihiin dumarka maxaabiista ah oo la ii sheegay inay iyaguna dambiyo kala duwan loo soo xiray kamana marna ka faa'iideysiga xilliga ay xabsiga ku jiraan maadaama adeegyada waxbarasho iyo fursadaha farsamo ay qayb ka yihiin waxaana ii waramaysaa mid ka mid ah maxaabiista dumarkaahi waxaan ka mid ahay dumarka ku xiran xabsiga dhexe waxaana ku xukumanahay 10 sano xariga hadda waxaan xiranahay 2 sano iyo bar waxaan la igu soo iideeyay kees al-shabaabnimo waxyaalaha inta aan ka faa'iidoon ka bartay waxaa ka mid ah harqaan tolidda waxyaalaha aan talo waxaa ka mid ah uniformkan aan hadda sitoo kale
saraawiisha shaararka cabaayadaha goonooyinka fudashaariga waxaasoo dhan waan tolnay duruucda intaasoo dhan caruur iyo rag iyo dumar intaba waan u tolnay waxaan rajaynayaa inta haddaan ka baxo farsamada inta aan ku bartay inaan ku shaqaysto inta aan xiranahay oo ilaahay ii qadaray inta inaan sii joogan gabdhaha walaalahii inta ku xiran inaan usii faa'iideeyo intii aan bartay taasaan rajaynaya xabsiga dhexe iyo xabsiga garsugayaasha labadaba iskoolaan ka dhisnay subaxii ay iskool aadaan labadaba waxaan ka dhisnay masaajidyo laba masaajid baa ku yaala oo lagu barto diinta islaamka lagu baro qur-aanka lagu baro lagu xifdisiiyo diinta lagu baro siirada lagu baro tafsiirka lagu baro muxuu ahaa yani halkaasna yani si muxuu ahaa isbedel ruuxi ah oo qalbi ah loogu sameeyo oo la baro dadka diinteenna dhabta ah diinteenna amniga ah diinteenna suuban inay ku bartaan meesha oo halkaas ay ku arkaan dunuubta ay soo galeen noocu raba ahaado mid argagixisaha soo galo mid burcadnimaha soo galo tuugnimaha soo galo turuufo ama qiyaamaha soo maro diintu waxay ka qabto iyo islaamnimadiisa marka halkaasna waxaa kaloo socda marka iyagana iskoollo aan u kala saarnay darajooyin dugsi farbarad dugsi dhexe dugsi sare waxaanu hadda waa hadal la wadna oo aanu rajaynayna mar inay bilaabto intooda heer jaamacadeed gaaray jaamacaddooda inay meesha ku qaataan xabsiyada caalamka beryahan dambe waxaa loo bedelay goobo dhaqan celin iyo goobo waxbarasho xabsiga dhexe ee xamar waxaa ku yaala dugsi waxbarasho oo ay si joogto ah u galaan maxaabiista si daruusta caadiga ah ay u qaataan galaaskan waa galaaskii shanaad waa galaas u sida galaas ku xigo waaye ardaydan muddo aan isla joognaa hadda waxaan u dhigay aniga laba maado waa maadada Englishka iyo maadada Science-ka marka fahamkooda waa arday aad u fiican waaye waa inkastoo iskugu jiraan laakiin dad waxaa waaye oo collective macnaha oo cooperation ka dhexeeya markasta casharada isla akhriso isku qolol degan isku meel degan taas ayaa saacidaysa marka inay casharada qofka liita iyo qofka fiican ay xoogaa isgarabsadaan marka fahamkooduna aad u fiican yahay dowladdu waxa ay ku guulaysatay inay xabsiyada dibadda ka soo dayso maxaabiista Soomaalida ku rafaadsan wadamada caalamka sida India, Seychelles, Libya iyo dalka Ethiopia. boqolaal maxbuus ayaa dalka dib loogu soo celiyay tan iyo bartamihii sanadkii hore 2017. haddaba maxaabiistan ayaa loo sameeyey xirfado shaqo oo ay ku shaqaystaan taas oo anfici karta inay nolol maalmoodkooda iyo mustaqbal shaqaba ay u noqoto. waxaanu abuurnay xaruntii tababarka iyo wax soo saarka farsamada gacanta iyo wax soo saarka taasoo maanta dhowr disibliin leh oo lagu baro najaaradda waxaad soo arki doontaan ama soo aragteen miisas iyo sariiro iyo qalab xafiiseed iyo qalab guryaha ay sameeyeen waxaan rabnaa inaan soo celino insha Allah sida waagi la oran jiray gabdhaheenu markay gursanayeen haddaan qalabka asluubta noloo keen guri galmayno mar dhow insha Allah dariiqas inay qaadataan jecelna waxaa jira muxuu ahaa aluminiumka oo farsamo casri hadda dalku saadad albaabadan u jeedo hadda ku dhigan xafiiskayga oo muraayada iyo dirashadaha kulli ayaga sameeyay meesha lagu sameeyay waxaa la sameynayaa muxuu ahaa alxankii waxaad soo aragteen waxa sariiro banaanka duuban hadda sariiraha soo aragteen faraha badan waxaa loo sameeyay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa loo sameeyay waxay sameeyaan hadda tababarka ciidamada dhan qoryahan looxa ah oo waa qoriyo markaad aragto laakiin xabada ka dhici mayso halkaan baan ku sameyn maxaabiista sameynaysa markaanu macallimiin iyo khubaro ciidanka ah oo saraakiil loo dhiibay waxay sameynayaan muxuu ahaa dhismihii rinjiintii dabkii korontadii makaanigiintii dhartolidii yani waxaasoo dhan waxay ka mid disibliinada la baro maxaabiista oo hadda ka socda xarunta tababarka iyo wax soo saarka ciidanka waxay soo saaraan waxaan u furnay hadda iyagu xabsiga ku jira account-aan u furnay bank account-aan u furnay ama xisaab socota ee bangiyada ayaan qaarka u furnay kuwa farsamada ka shaqeynaya si haddii lacag timaado account-kiisa loogu shubo haddii ay badato markay shaqadu badato oo wax soo saarka badato waxaan ku talagalnay lacagta
asaga la siinayo accountka heshiis waxaan kula galnay inaan la saxiixayno intuu xabsiga ku jiro maxaa waxaan doonaynaa wixii uu ku yimid meesha iyo dunuubtii hadduu drag ahayd hadday wax burcadnimo waxay noqotaba hadday argagixis ahayd inuusan wixii iyo wax lamid ah ku kharash garayn hase yeeshee uu ku kharash gareeyo qoyskiisa caruurtiisa asaguna kayd helo oo hadhowto markuu xabsiga ka baxo wuxuu qabsan karo. halkan waa warshad ku dhex taala xabsiga dhexe oo qaybo kala duwan leh. qaybtan aan ku jiro waa qaybta alxanka ee warshadda weyn ee ku taala xabsiga dhexe. maxaabiista halkan ka shaqeysa ee farsamada kala duwan halkan ka haysa waa kuwo isugu jira kuwa laga keenay jasiiradda Seychelles iyo kuwa laga soo xiray dalka gudihiisa. Bashiir oo iga dambeeya waxa 5 sano xabsigiisa uu ku soo dhameystay jasiiradda Seychelles waxaana halkan ugu jira in uu dhameysto inta uu hartay xabsigiisa. dabcan waxa uu iga waramayaa bal marxaladii uu soo kala maray markii uu ku xirnaa jasiiraddaasi iyo marka halkan uu joogo. Seychelles waxaan ku xiraa muddo adugu taqriiban 5 sano ayaan ku xiraa. dambiga lagu soo eedeeyay wuxuu ahaa dambi muxuu ahaa bayrasnimo lagu eedeeyay waa hadda adduunka oo dhan macnaha ka jirta dadka meel walba joogan in lagu dulmiyo hadii macnaha dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogan asaas looga dulmiyo waa wax iska caadi noqday way sanadii dambe la soo dhaafay. runtii laba farqi ayaa u dhaxeeya marka aad iga wareysato xabsigaas iyo xabsigan difference way baa u dhaxeeya. difference weyn u dhaxeeya waxa way marka koobaad ciidaadi ma joogtid eelkaad arki maysid waa dulman tahay dhan waliba waa ka dulman tahay haddii xakun ay tahay iyo haddii muxuu ahaa xorriyad darro ay tahay intaba meel waliba waad ka dulman tahay kolka dal shay aad ku xiranto. laakiin marka ciidaadu hooyo timaado waxaad dareemaysaa farxad iyo waxyaabo fara badan oo ka maqnaa oo intii xabsiga ay ku jirtay aadan ku heli karin ayaa dareemaysaa. waxaa kamid ah halka maalinta aanu nimi waxaan dareennay waxay tahay dowladnimadu iyo muxuu ahaa Soomaalinimadu iyo wadannimadu waxa ay taan dareennay maalinta airportka laga soo dejiyay waan iska ooyayba waxaan la ooyay farxadda iyo quruxda iyo muxuu ahaa haybadda dalkeena uu leeyahay iyo barwaaqanimada iyo muxuu ahaa dowladnimadu waxay tahay baan la ooyay sidaas laajligeed kolkii halkaan laga keenayna muddo waxaan taagnaa ciidda ayaan taagnaa si macnaha aan xamuumtii macnaha ma xiisii aan u qabaysay xoogaa aan u dareemo eheladayda waan isaragnay waa noo yimaadeen maasha Allah anytime waan isaragnay waxaa runtii juhdi badan iyo dadaal fara badan lagu bixiyay dowladda tan nabad iyo nolol oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaaminayo runtii dadaalo fara badan baa nala ku soo bixiyay innaga kaliya ma aanan hayn waad ogtihiin qolada Hindiya ku dhibaataysnayd muxuu ahaa Itoobiya qolaa ku dhibaataysnayd muxuu ahaa daafaha caalamka qolo kale ku dhibaataysnayd marka sidaa ay tahay dadaalo fara badan ka bacdi dadkii in la soo daayay iyo in la keenay inta ay wada noqdeen alxamdulillah anaguna waxaan nasiib u yeelanay dadkii dibadda laga keenay inaan ka mid noqono anagoo aad iyo aad ugu faraxsan waliba intaa waxaa sii dheereed muddo 3 sano ayaan waxaan ka codsanaynay UN-ka waxaanu lahayn dalka iyaga dib hana loo kugu celiyo iyana waxay yiraahdeen dawlad aan idinku aaminaba dalkiina kama jirto. waxay sameeyeen sariiraha loogu talagalay inay ku seexdaan maxaabiista oo ay noocyada isdulsaarka ahayd sidoo kalena ganjeelooyinka iyo daaqadaha guryaha kuwaas oo loo iibgeeyo suuqyada si loogu soo bedelo agab kale oo ay ku bartaan farsamada gacanta. waxaa sidoo kale ay sameeyeen alaabaha guryaha la dhigto sida jiifafka iyo fadhiyada oo si heer sare ah loo soo farsameeyay. waxaa qaybtan horjooge u ah wiilkan dhalinyarada ah oo isaguba ka mid ahaa dhalinyaradii laga soo saaray xabsiga jasiiradda Seychelles. waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga keenay 2017 bishii December 17 aniga wadankayga hooyo imid waxaan ka maqnaa 6 sano iyo waxaan ka maqnaa 2 bilood oo aan ku xirnaa wadanka la yiraahdo muxuu ahaa Seychelles muxuu ahaa horta marka horta xukuumadda Soomaaliya horta waa u mahadcelinayaa maadaamay wadankayga hooyo oo muddo dheer aan ka maqnaa ay keentay laakiin muxuu ahaa waxaan jeclaan lahaa maadaama aan nahay dhalinyaro muxuu ahaa in badan xirnayd in dowladdeena muxuu ahaa Soomaaliya ay magaranaysaa xorriyaddeeda dib ay nagu soo celiso annagu waxaan nahay 65 nin Somaliland Puntland labada maamul iyo xabsiga dhexe ee Muqdisho baan ku xiranahay 65 midda labaad xabsiga dhexe markaa imid aad iyo aad baa ugu farxay oo hooyaday baa igu timid gabdho walaalahay ayaa igu yimid oo afar ciyaal wato ayagoo inama igu dambeysay kana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay midda labaad xabsiga dhexe waxaan ka helnay waxbarasho baan ka helnay hadda saa u jeedo waxaas oo fadhiyaala
kulli innagaa samaynay waxaana jeclahay macaa markii xabsiga aan ka baxo in aan ku shaqaysto farsamadan aan bartay wax soo saarka warshadda xabsiga dhexe ayaa ka faa'iidaystaan ciidamada xildhibaanada iyo madaxda kale ee qaran iyagoo alaabaha ka iibsada warshadda si ay u dhiirigeliyaan farsamayaqaanada maxbuusta ahi wax soo saarka warshadda xabsiga dhexe waxaa lagu soo bandhigaa carwadan hadda aan ku jiro dabcan kuraastan aan ku fadhiyana waxaa la ii sheegay in loo sameeyey xildhibaan dalxa oo runtii isagoo yimid halkan isla markaana noocan codsaday in ay u sameeyaan dhalinyarada maxaabiista halkan ku xiran xafiiska warfaafinta madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya oo uu ka socday agaasimaha warfaafinta Cabdinuur Axmed ayaa warshadda uga dalbay miisas ay isticmaalaan xarunta murtida iyo madadaalada ee National Theatre taas oo aan maalintii goobjoog u ahaa kala wareejinta agab la guddoonsiiyey maareeyaha tiyaatarka Abwaan Guure waxaan maanta ku faraxsanahay in la ku wareejiyo oo madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska warfaafinta oo nagu wareejiyo alaab ay samaysay warshadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay nooga fiican tahay alaabtan oo inooga qiimo badan tahay warshadaha adduunka ugu sareeyo kuwa lagu sameeyo midaan ayaa nooga qiimo badan oo nooga farxad badan alaabtana la ku wareejiyay waxaa ku sawiran golihii murtida iyo wacyigelinta Soomaaliyeed waxaana sameeyey dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo tababaray inay wax soo saaraan ayagoo haddii alla ku roon yahay aan xorriyad haysan oo ku xiran xabsiga dhexe aad ayaan uga mahad celinaynaa farsamadan quruxda badan iyo alaabtana la ku wareejiyey maxaabiista qaar ayaa ah kuwa loo haysto lacago tiradoodu ay aad u badan tahay iskamana bixin karaan laakiin waxaa la siiyey fursado ay kaga dhex shaqaystaan xabsiga si ay isaga bixiyaan magta loo haysto waxaan la kulmay mid ka mid ah maxaabiista lacagaha loo haysto ee halkan ku xiran خير الله سينا لها بشير محمد جامع كهنان بشير قوبة أيده العقد الجولة وائمسا طبعا كونوا شنكون أنا بعنا شنكون صوش غيصة شنكون أقدر أسائي هاي شغلان هذا أنا وسرها أنا نسميه بقول حبوا لحكوا مركزاس لو بندق وحاجة صوب بحيدو كون دولار عملك صوب بحيد براها يكون صارت مركز لقى إن أساس تيجي غيص شنتو كون كلنا أنا جا صو صارت عندي أروى كابتن سليمان مدحا maamulka warshadaha ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ii waramaya halkan sidaad arkayso waa xarunta farsamada iyo wax soo saarka ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa qaybo badan ay leedahay sida indhaha ku soo aragtay qaybta aluminumka qaybta farshaxanka qaybta tolmada qaybta furniture-ka oo farsamo xaflada xafiisyada lagu sameeyo iyo qaybta alxanka halkan wax ku barto oo termka sala keenaa maxaabiis oo qaybahaas kala duwan wax lagu baro hawa 6 bilood la baraa qofka marka uu aqoonsi active ay noqoto waxa waaye qolo kale oo 6 bilood kala la soo saaraa wali konton maxbuus soo xarooto maalinka 6 bilood boqol konton la baraa si xabsiga dadka ku xiran la isku gaarsiiyo bas qofka maalin kasta ma joogi karo mugtahay hal tinta la keeno loogu wada dhamay karo qolada kale wax barashay rabaan soo la wada baraa waxa kale meeshan dadka markay xabsi maqlaan in la xiran kaliya aaminsan laakiin meeshan xabsiyada standardka oo hadda caalamka jira in la jaan qaaday qaaradda Afrika qaasatan bariga Afrika waxa marka kala fiir xabsiyada ugu fiican oo ku jira wada aaminsanna gaashaanle sare Cabdirashiid Cusmaan Culuw oo ah madaxa hoggaanka wacyigelinta iyo siyaasadda ayaa iiga waramay dib u soo kabashada warshadda xabsiga dhexe oo uu dib u nooleeyay taliyaha ciidamada asluubta sareeyo guud Generaal Bashiir warshaddan waxa ka mid ah warshadii ku burburay qaranjabkii Soomaaliya ku dhacay ku burburtay laakiin hadda way soo kabatay waxay ku soo kabatay talada taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Kaynaan ayay ku soo kabatay sidaan ku noqotay ilaahay baa makaniyay inuu sidaan ka dhigo annaga dadkan kale ka shaqeynayna waa wakiiladiisii mas'uuliyiinta meesha joogta waa wakiiladiisii wakiil asagu baa u wakiishay sidaas baan lagu shaqeynayay warshadu hadda way dhameystiran tahay meel fiican ay maraysaa meelaha ugu fiican hadda maraysaa warshadaha oo wax soo saara warshada ugu fiican waa waxay soo saartana waad aragteen qaab walbay tahay xabsiga
maxaabiista ku xiran haddii laysaga soo xiro xabsiga oo layska soo dhex dhigo oo waktiga ku dhammaystaan waxba faa'iidaha kama dhalanayaan. taliyaha fikraddiisu taa wuu bedelay. warshadan asaa abuuray maxaabiistu inay farsamo ku bartaan, lagu dhaqan celiyo, wax lagu baro. hadhow ka soo baxa halkan qof xirfadla ah ninkii 2 sano la xiray sanadka hore hadduu xabsiga ku qaato sanadka dambana uu warshada farsamada ka barto asoo farsamo yaqaan oo koronto yaqaana ama asoo alxamiistaa ama asoo qoladan oo guryaha suubiso ah oo sida qalabka xafiisyada iyo guryaha suubisan najaarka la yiraahdo ah uu ka soo baxaya. dawaar waa lagu baraa. fikraddaas fikrad taliyaha ka timid waaye. runtii waa fikrad aad u fiican loo wada riyaaqay. xabsiga dadka ku xirana lagu dhaqan celiyaa warshadan. sareeye guud bashiir maxamed jaamac kaynaan bashiir goobe ayaa ah shakhsiga keliya haysta darajada ugu sareysa ciidan, waana markii labaad ee loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxaa la ii sheegay inuu isbedel weyn ka sameeyay taliska ciidanka tan iyo markii uu yimid xafiiska. bashiir oo aan xafiiskiisa kula kulmay ayaa iiga waramaya ciidanka asluubta iyo aasaaskoodii. ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaa ciidan qaran oo kamid ah xubin kamid ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya loo dhisay 1972 bishii February. markaasoo ciidanku oo horey u ahaa ciidan xabsiyada kaliya ku kooban hase yeeshee aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida ayaa waqtigaas si rasmi ah loo go'aamiyey inuu noqdo ciidamada qalabka sida ka tirsanay Soomaaliya. marka hadda muddo 42 sano ayuu gaaray. sharciga uu ciidanku dhisan yahay wuxuu leeyahay waajibaad gaar u ah oo takhasusaad gaar u ah iyo waajibaad guud oo uu la wadaago ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. ciidanku wuxuu mas'uul ka yahay ilaalinta iyo haynta iyo difaaca xabsiyada dalka iyo haynta maxaabiista dhinac xuduud ahaan. intaas markii laga soo tago adduunku maanta waxa la gudbay waxa la yiraahdo xabsi. adduunku waa dhaaf. adduunka casriga waa gudbay. ma jirto hadda laguma talagelin qof dambi uu galay in lagu ciqaabo. waxaase lagu talagalay qofka dambi uu galay oo maxkamada soo xukumin in la dhaqan celiyo. marka magacii ahaa muxuu ahaa prisonska hadda waxaa loo bedelay corrections. innaga nasiib wanaag ciidankeena marka la aasaasayba 1972 bishii February waxaa loo bixiyay ciidanka asluubta. marka waxaad moodaa inaynu anagu ka horeynaba muxuu ahaa afkaartan cusub oo hadda ilaa iyo 12 sano ugu dambeeyay aasaasantay. 40 sano ayay la faactahay ay jirtaa magaceenu asluub oo inuusan ahayn ciidanku ciidan caburin, inuusan ahayn ciidan xabsiyada dadka ku dhiba, hase yeeshee oo hado ciidan asluub celiya, dhaqan celiya, waxbara. taariikhda ciidankan waxaad ogtihiin inuu ahaa ciidanka ugu warshadaha badan, muxuu ahaa hoggaan weyn oo dhismaha dalka ka qayb qaata ayuu lahaa. wuxuu lahaa beero badan oo maxaabiis lagu dhaqan celiyo, la siiyo, loo qaybiyo. hadhowna markay ka baxaan qaarkood iskaashatadii waayo arag oo kale oo muxuu ahaa beeraha waxa waayo aragaas uu sheegaya waa dadka xabsiyada soo maray. waxaana mas-uul ka ahaa oo mashaariicdaas fuliyey ciidanka asluubta Soomaaliyeed. ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu hadda ku jiraa reform ama dib u habeyn. wuxuu ku jiraa dib u dhis, wuxuu ku jiraa dib u kabasho. waxaanu ilaahay mahadiisa iyo gacanta ay ka geysteen muxsiniinta Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah, gaar ahaan ganacsatada u badan. wuxuu gaaray muxuu ahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu dib u soo nooleeyo adeegyadii jiray oo horey oo xabsiyadu waagi hore ay u lahaayeen iyo qaar kaloo lagu sii darayba. gudaha xabsiga dhexe ayaan booqday. dabcan waxaan ku soo arkay waxyaabo aad u kala duwan markay noqoto dhanka deegaanka,
waxa uu la mid yahay ama uu u dhow yahay xabsiyada kale ee caalamka waayo maxaabiistu waxay haystaan meelihii ay seexan lahaayeen qaboojiyaashii telefishinkii ay warar kala socon lahaayeen iyo cunooyinkii laakiin dhismahan iga dambeeya waa dhismo duq ah derbiga jismigiisa markaad gudaha u gashid waa mid bolol ah oo aad u liita waxaana dhici karta dadka gudaha ku jira maadaama ay yihiin kuwo aad u badan waxaa laga yaabaa qolka ugu yar waxaa la ii sheegay inay degan yihiin amba ay sexdaan 40 qof halka qolalka qaarna ay ku jiraan in ka badan 100 maxaabiis ah dabcan waa dareemi kartaa intaasoo qof inay ku noolaadaan caafimaad ahaan iyo weliba deegaan ahaan waxa saamaynta ay ku leedahay dadka maxaabiista xabsigu horta waa aad u da'weyn waxaa la sheegaa in la dhisay casrigii Cusmaaniyiinta oo Turkidu dhistay waa garan kartaan marka waxaa la ii sheegay inuu furmay 1903 marka horta aad buu xabsigu u facweyn taas marka waa mid waxaa marka la qorsheeyey oo dowladda u qorsheysan in wax laga bedelo oo xabsiya cusub oo casri ah la helo sida hadda aragtay xabsigan 50 60 40 70 ayaa meel ku wada xiran waa dhib aad u weyn waay maadaama xabsiga dhexe ee xamar aynu soo aragnay waxa uu ahaa dhismo duq ah isla markaana aanay u fiicneen deegaan ahaan iyo caafimaad ahaan halkan aan joogo dhismahan iga dambeeya ayaa ah dhismaha cusub ee xabsiga casriga ah ee loogu talagalay in lagu xiro maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee xamar xabsigan cusub ee qaybtiisii hore la dhammaystiray ayaa iminka diyaar u ah in la keeno maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe waxaana la adkeeyey ammaankiisa ciidanka ilaalada xabsigan cusub ayaa haysta meelo ay ku soo socdaan oo ay ku gaaf wareegi karaan gidaarka weyn ee xabsiga xeendaabka u ah waxaana loo sameeyey qaab casriyeysan iyadoo lagu rakibay kaamirooyinka loo yaqaano CCTV xabsigaas sidaad aragtay oo casriga ah wuxuu noqon doonaa xabsi ka casirsan qaaradda kuma yaalo Afrika labo wuxuu la mid yahay oo la tartamaya xabsiyada dalalka horumaray ee ku yaal sababaha soo socda kow qolka waxaa degaya ugu badnaan 6 qof niina ku soo aragteen 6 qof oo 6dooda sariirood musqushoodii qabayska iyo muxuu ahaa isticmaalkooda u leh meel ay wax ku akhristaan meeshii haddaad aragtay waxaa lagu talagalay miis baa imaanaya halkaas meeshii wax ku akhrisan lahaayeen waa marka waa nin maaragtay sariirtiisii iyo wax akhristiisii musqushoodii 6 qof ka badanna lama ogolin la gelin mayo siduu u sameeyeen waa u sameeyeen maaragtay ventilationka ama hawada sida loo qaadanayo qabow yacni meel waxay noqonaysaa muxuu ahaa qofka xorriyadiisiiba waay maahan uu si maaragtay aadanimo ah oo karaamadiisa dadnimo iyo muslimnimo iyo soomaalinimo la ilaaliyey ugu noolaanayo xabsigan dhexe ee loo diyaariyey maxaabiista in halkan lagu xiro ayaa waxa uu yahay mid casri ah maadaama xabsiga dhexe uu yahay mid duqa isla markaana qolalkiisu ay ku xiran yihiin in ka badan 150 maxaabiis calaa qol ayaa kani waxa uu kaga duwan yahay midkii hore dabcan waxaa loogu talagalay maxaabiista in halkan lagu xiro calaa qol inay geli karto 6 maxbuus oo loo dhigo sariiro isa saar ah qolkan hadda aan ku jiro oo kale waxaa loogu talagalay in lagu xiro 6 maxbuus oo keliya oo 3 sariir oo isa saar ah halkan loo dhigo waxaana ka dhaxaysa hal suuli oo ay qaybsadaan 6dooda maadaama xabsigii hore ee xabsiga dhexe aynu aragnay 70 ilaa iyo 150 maxbuus ay ka dhaxaysay hal suuli maxaabiista ku jira qolalka halkan ku yaala oo aad u tiro badan ilaa iyo gees ayaa waxaa sidoo kale loo sameeyey meel ay ku waji dhaqdaan aroortii markii ay soo toosaan maadaama gudaha qolalka aysan lahayn meel lagu waji dhaqdo dabcan waxaa loo diyaariyey qaybtan in ay ku weysaystaan ku waji dhaqdaan ama ay ugu diyaar garoobaan maalintooda gaar ahaan marka ay quraacanayaan gudaha xabsigan cusub ayaa bilicdiisu aad ku soo jiidanaysa iyadoo uu leeyahay
guryo ay seexdaan garsoorayaasha maxkamadeeya maxaabiista maadaama maxkamad caalami ah halkan laga hirgeliyey. halkan aan taaganahay waa maxkamadda loogu talagalay xabsigan cusub in lagu maxkamadeeyo maxbuusta halkan ku xiran. halka iga dambaysa waa meesha ay fadhiistaan garsoorayaasha maxkamadda. dhanka bidixna waxaa halkan loogu talagalay inuu soo galo qofka maxbuuska ah ee dembiga loo haysto in ay ku qaadaan qaaliyaasha iga dambeeya. sidoo kale dhanka midigna waxaa halkan istaagaya garyaqaanka difaacaya maxbuuska iyo markhaatiga. dabcan maxkamaddan naftirkeedu waa mid heer caalami ah loo sameeyey lana mid ah maxkamadaha aanu ku soo aragnay dunida horumartay.